Guardiola oo si rasmi ah uga hadlay ku laabashada Barcelona. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa si cad u sheegay inuusan marnaba dib ugu laaban doonin Barcelona, isagoo meesha ka saaray inuu mustaqbalka u noqonayo tababare ama xitaa madaxweyne kooxdaas. Guardiola oo la hadlayay GQ magazine ayaa yiri, "Way iiga dhamaatay. Wuxuu ahaa waqti qurux badan, balse hadda wuu soo dhamaaday." Markii la weydiiyay haddii uu u tartami doono xilka madaxweynenimada Barcelona, waxa uu si degdeg ah u sheegay, "Maya, anigu arrimahaas kuma fiicni." Taariikhdiisii Barcelona, Guardiola wuxuu ka soo baxay akademiyada caanka ah ee Barcelona. Wuxuu u saftay kooxda 382 kulan, wuxuuna la qaaday 6 koob oo horyaalka La Liga ah iyo 1 Champions League. Wuxuu noqday tababaraha koowaad ee kooxda sanadii 2008, halkaas oo uu kula shaqeeyay xidigaha caanka ah ee Lionel Messi, Xavi Hernandez iyo Andres Iniesta. Intii uu tababaraha ahaa, wuxuu kooxda ku hogaamiyay 3 horyaal oo La Liga ah iyo 2 Champions League. Guud ahaan 247 kulan ayuu kooxda maamulayay kahor inta uusan ka tagin dabayaaqadii 2012. Pep Guardiola wuxuu si rasmi ah u xaqiijiyay in xiriirkiisa shaqo ee Barcelona uu yahay mid dhamaaday. Inkasta oo uu yahay halyeey ay ku weyn tahay taariikhda naadiga, haddana wuxuu u muuqdaa mid go'aan adag ka qaatay in uu mustaqbalka ku laabto garoonka Camp Nou, tababare ahaan ama hoggaan ahaanba. Warbixintaasna waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena Bandhiga Ciyaaraha oo aan mar walba uga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii uu ku xiiso geliyay muuqaalka, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaa, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.